السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز روحان ربائنا إذن كسلام سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة إسلام كدب وحان ربائنا مركز لبعض إن كسل يصوب لهن محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. صلي يا سلام للحريري تعدي ما نعلننا النبي عليه الصلاة والسلام. فرحد وين إيتا ما أنت إن جوجو مولع دينيت نا diintu meesha taalana waa meesha barakadu taalo karaamada ilaahay taalo ducadu taalo marka waxaan rajaynayaa inaan ducadiina kasban doono waxaan rabaa inaan soo jeediyo qayb yar oo kamid ah masterkayga labaad oo aan ka diyaariyay jaamacadda London University of London at Goldsmith jaamacadda London Soddon College ka kooban tahay Goldsmith ayaan ka diyaariyay 2013 waa muddo hadda laga joogo 10 sano waxaan ka qoray dariiqada qaadiriya especially هذا المروة البصومالي كود حفافه إلا ما أنت الصعداء مركب مددر كما هاللينو أنا علم باريس كلا قلقلي أو تن ما بندقين ولي هذا بندق لها وحيني مسكونسبشن كده تكبح لهنا على جيابه واحد فكر قلدن التاريخ ده كهيستان هذا الكبد نحمر الضدك وأنا نوع عرور كسو جاري وعن كده شمال هل كان أنكفوين في ليبيريا وضنا بير جورج شغالة هوتي سجشة إلا عرور مدى يدو حمق لجري دريقة قادر يدو قميسي لصفتي تنسالي يدو والله درت marka taariikhda markaan bartay anthropology iyo history thesis-kaygu waxaan ka dhigay bal inaan taabaaro marka record-kan isticmaalay wuxuu ahaa record-kii Talyaaniga iyo kii Ingiriiska waxa badnaa kan Talyaaniga maadaama koonfurta dagaal xoogiis ka socday qaadiriyada especially marka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo khaliif Dr. Abdulqaadir Macalin Nuur oo isoo casuumay sanadka hore iyo marar badanba ay ii suuragali weysay inaan imaado sanad kana imay oo ii soo ragashay shalay sanadka hore waxaan zoom ku soo galon ka hadlay taariikhdii Sheekh Aweys sidoo carruurnimadiisii ku sugnaanshihiisa baraawe meesha ku dhashay meeluhu ku barbaaray meeluhu diinta ka raadiyay Baghdad oo tagay iyo Basra oo diinta ku soo bartay muddo 10 sano ku maqnaa soo ku soo noqday xamar markuu yimid Sheekh Cabdiraxmaan Suufi culimada si u soo dhaweeyeen sidoo u sameeyay revival dariiqooyinka islaamka iyo dariiqada qaadiriyada waxa uu ka bedelay ilaa Mozambique Congo taas waa ka hadlay maanta waxaan ka hadlaa asaga iyo gumaysiga wixii kala qabsaday marka labaad rabaa asnaynaan xuso wana mahadnaqo asoo naga maqan sanadka dambe inuu ila imaan doonaan rajaynayaa Professor Scott Rees oo aan ninkii igu horeeyay cilmi baarista anagana jidkiisa aan dabagalay markiis hore wuxuu ahaa nin gaalo cadaana oo muslim hadda markuu cilmi baarista dariiqooyinka uu aad u darsay PhD-na ka qaatay waa qaasatan PhD-diisu waxay ku saabsan tahay culimadii baraaw dalku markuu gubto cilmi baarista sameeyay marka Professor Scott Rees ma hadna qoyga mudan yahay macallinkaygu waaye ninka jidka ii falay waaye oo si dabagalay si aan u sii xojiyo marka qof cilmi baaris sameeyo dariiqa waa la dabagalaa qofba meesha aspectiga maqan oo qoraa marka PhD-diisu waxay ku saabsanayd culimadii baraawe si fiican oo u qoray ilaahay ajran asnaa ka siiyo hanuunkiisana ilaahay ku sii wado sanadka dambe inuu xamar noo yimaadaan rajaynaa jaamacadda America dhinaceeda galbeed oo dhigaa oo naga fog inaan soo wadi doona rajayna hadii ilaahay marka taydan bilaaba waqtiguna waa nagu ciriiri waqtiga intee badna aan kaftame Dr. Xasan iga qaatay marka inaan iska soo koobay noqonay sidaan u soo koobi kara u soo koob intaan hadalka wado cilmi baarista wixii aad dareentaan in mugdi idin kaga jiro su'aalaad dambaad iga weydiin kartaan cilmi baaristu waa iska turning points meelo laga qabanayo marka inaan wax ka tagtagaa laga yaabaa wixii gudaha ku jiraan marka qofkii way weydiin karaa waa soo koobaa waxay ka bilaabanaysay 1884 waxay ku ekeyd 1908 saad ogtiin Sheekh Aweys wuxuu dhintay 1909 marka 24 sano aniga darsay 1884 wuxuu ahaa sanad yaab leh sanad aad mucjizo u ahaa boqol iyo hadda meeqa laga joogaa 37 sano boqol 37 sano 1884 sanad wuxuu ahaa murugo sanad wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka geeska Afrika ku nool walwal iyo walaac oo ku dhashay waxay ku markas garaysan tahay hoosta kaga xariiqan tahay taariikhda Soomaaliyeed sanadkii colonial powers ay kala qaybsadeen Soomaalida iyo ummadda muslimka oo dhan geeska Afrika marka mucjisadaas ku dhacday ama masiibada dhacday haddaan dhahnaba disasterka yimi ummadda Soomaaliyeed waxay ula tagtay culimadeedii si ay u macneeyaan waxaan ku dhacay mucjisadan dhacday ee gaal intuu Yurub ka soo duulay oo dhulkeeda ku kala qaybinayo yaa macneyn karo gabyaagi waa macneyn waayay waa isku dayeen inay macneeyaan
kaaba qabiiladii waa loo tegey waa macnay waayeen waayo ummadda indheheeda waxaa ahaa kow culammada laba waxaa indhe u ahaa gabayaaga kuwa gabiya oo murti alifo oo fikra saddexna waxaa ahaa kaaba qabiiladii culammadii yaa loo laabtay marka culammadii waxay ku macneeyeen ummadda muslimka oo diinta ka fogaatay magaaladan caasimadda xamar oo wax ribo u eg laga sameeyey xamar weyne iyo shangaani ganacsiga degaayo in wax galeen masiibadaas dhacday dhulka xeebaha berbera meel walbo saylac harar muqdisho marka baraabe ilaa kismaayo inay sabab u tahay gaalkan inuu noo yimaado diinteenii oo aan ka fogaana aawadeed marka ummadda waxa faa'iidada laga hela waxay tahay in ummadda diinta ku dhawaadeen culimmadeedana u dhawaatay culimmadana noqdeen kuwa fasirayo colonial occupation qarnigii 19aad marka dariiqooyinka culimmada waxay ka aasaaseen geyga Soomaalida jamiicooyin fidiya diinta islaamka dadka wax bara la isugu soo aruriyo diintana lagu qooyay jamiicooyinkaas dadka ugu horreeyay waxa kamid ah Sheekh Cabdiraxmaan Axmed As-Saylici wuxuu abuuray meelo badan oo kala duwan markii dambe wuxuu sameeyay branchyadan telefoonada camal u taqaanaan branch kamid ah dariiqada qaadiriyada oo la yiraahdo As-Sayliciyya sharaf iyo karaamo gooni ah afar isbuuc ka hor inaan qabrigiisa booqday qolqol oo tagay culimadii joogtana la kulmay lana soo sheekaystay waxna ka soo qoray jamiicooyinkaas la abuuro waxa kale asagana sidaas oo kala sameeyay oo ka dambeeyay oo shiiqiisu ah Sheekh Aways Al-Barabi Sheekh Aways dheer loo yaqaano wuxuu abuuray branch ayadana la yiraahdo Uwaysiya ilaa iyo maanta ka jirta Mozambique iyo bariga Congo ilaa bartamaha ayuu geeyay Afrika waxaan ku dooday cilmi-baaristeeda gaaladan waa aqriyaan haddaan gumaysigu dalka soo geli lahayn oo geeska Afrika iyo Afrika imaan lahayn Sheekh Aways ilaa iyo South Africa inuu geyn lahaa diinta slide-na maanta aragnaa fiicneed oo intuso islaamku wuxuu ku akhaday bartamaha Afrika waqooyiga iyo geeska Afrika una joogaa dhulkaas waxaa galay mishinadii gaalada oo diinta islaamka geeyay Zambia Zimbabwe Botswana meelo badan marka slide-ka maanta inaan aragn aad u fiicneed meelna waa igu qorneed marka gumaysiga dhaxka togi ama dhaxjarkii uu ku sameeyay islaamka ka mid tahay soo gelidu soo galay inuu Sheekh Aways bariga Congo dib uga soo noqday kuna retire gareeyay retirement qof markuu wixii ka fariisto oo daalo u duqobo biyoli arnimadeedii waxa soo gaaray anoo 6 jir ah ayeeyadii Madiina Guuleed Faarax oo aada biyoli oo baabuur loo sii saarayo Sheekh Aways u socota meeshiisii biyoli si ay awliid Ilaahay ugu dhawaato marka xaalad saas ah ahayd waxaan marka u soo daadagayaa marka wixii kala qabsaday Sheekh Aways iyo gumaysigu Ingiriis haduu yahay haduu Talyaani yahay haduu Faransiis yahay haduu Portugiis yahay haduu Spanish yahay maalihii geeska Afrika ay ka soo galeen waxay aad u xoojiyeen oo ay arkeen culimada dariiqooyinka inay yihiin kuwa ka hor taagan inay dadkii qabsadaan oo si xoogobaan waayo ayagu waxay soo fariisteen marka hore xeebaha the coast waxay markii dambe doonayaan inay galaan qarnigii 19aad dhamaadkiisii the countryside oo ah miyiga la rabaa in la galo xeebta la rabaa in laga dhaqaaqo oo muddo dheerna ay fadhiyeen Baraawe iyo Markay iyo Muqdisho warshadan inay gaaraan muddo ku qaadatay saan ogtiin warshad waxay ahayd meeshii ugu horeeyay Talyaani dad looga dilo markuu damcay inuu ka dilo Afrika oo dhan waana qoranta ayadana waa record gareynay marka gumaysigu wuxuu aad ugu dadaalay marka asoo isticmaalaya siyaasadiisa caamka ee adduunyada oo dhan ka dhaqan gashay ee loo yaqaanay divide and rule kala qaybi si aad u xukunto asaga ka hor wuxuu bilaabay marka inuu kala qaybiyo dariiqooyinka Saalixiyadii Ahmadiyadii Qaadiriyadii iyo Rufaaciyo oo ayadana afarta dariiqo waaga geyga Soomaalida ka jiray inuu mid isugu diro inuu soo yeelo ma jirin gumaysi ka hor taariikhda waan weynay dagaal u dhaxeeyay dariiqooyinka dhexdooda gumaysi ka hor ma jirin maalin isdirreen waxa uu create gareeyay xukunka gumaysiga asaga abuuray inay iskhilaafaan taa waxa cadeeyay barasaabkii Ingiriiska ee xukumay waqooyiga Langton Brendan Swallash kii labaad qoraalkii uu qoray oo xilnay oo uu leeyahay af Ingiriis aan ka turjumi doonaa wixii Ingiriis ku qoray Soomaaliya aan ka dhigan isku dayaa aragtida iyo ficilada dagaalada ka socda dhulka Soomaalida gudaha ee dhex maraya dariiqooyinka aad iyo aad baan ugu dirsanay
greatly rejoiced. آدي نوفر حد قليل. سببته difference of opinion يعني فكرة يسكو دليان أو يسكو قلافسيين هي سياسة دينا إسوافة قيس تانا وإنان بوزيشن كيغا كدغا ميد كلير دولة دي أيو دريا وربحين قميسي أو وربحينا ووحو أسايا كريا قري وحي واركين واح نسيسري أو أنا مهمة إنقلاف كود اللي سيحو جيو سيدا أوجد علماء الطريقة القادرية waxay u kala sameeyeen two different conceptualizations laba fikradood oo cilmiyeeyeen ayay u sameeyeen gumaysiga dalka qabsaday taas oo ahayd black and fiddle iyo white and fiddle gumaysiga cad iyo gumaysiga madow culimada qaadiriyadu waxay qabeen in la kala hormariyo gaalka madow iyo gaalka cad tusaale waxay qabeen in gaalka madow lala diriro ka hor intaan lala dirin gaalka cad waxay u arkayeen gaalka cad nin ka yimid far away meel dheer maalin uu baxo oo baxayo laakiin gaalkan madow inuu naga kacin si taas ka soo horjeeda culimada dariiqada saalixiyada oo aad maqasheen Sheekh Maxamed Guuleed oo koonfur joogay iyo Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan oo waqooyi joogay waxay qabeen in marka hore lala diro gaalka cad kadibna gaalka madow say u arkayeen waxay ahayd kan xoog galay in madaxa la jabiyo kan madow ay u arkayeen inuu ka awood yarayna gadaal laga la diro khilaafka arinta ka dhashay wuxuu keenay in dagaal lagu qaaday gaalka cad lagu hormaray hormaristaasna cawaaqixmadeedii maanta in la socoto oo gaalkii madoobaa oo ugu ahaa markaan labadooda kala macneeyo ama kala qeexo gaalka madow waxay ula jeedeen boqortooyadii xabashada soo durqaysa gadaala in kaga sheegi doonaa qasiido ku saabsan soo u soo durkay ilaa balcad marow yimid 1908 shaaweys inay ka hadlayaan gaalka cadna waxay ula jeedeen dekii aan wada garanayno kii Yurub ka yimi marka cawaaqixumadii ka dhalatay in gaal cad lagu fudaado asaga la hormaray in la diro waxay noqotay in gaalkii madooba uu si baan isugu soo fidiyay dhulka Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta geeska Afrika maabka Soomaaliya maanta hadaa fiirsaan number 7 caloosha oo wadna intaan dhexe oo Soomaalidu ku dhex jira yaa hadaa maabka fiirsaan meesha maabka sidoo yahay ila intu slide aad u fiicnay ha ku adkis ilaa iyo aylo ku dhawaad inuu xeebta gaaro ayagu waxay dhaheen ilaa 120 kilomitir ay noqonayaan marka sida uu qoray Professor Scott Rees oo wax badan ka qoray taariikhda culimada hore Soomaaliya aan sheegay culimada dariiqada qaadiriyada waxaan aniga asaga record gareynay in qoraallo waan u dareen Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan ay koonfurta culimada dariiqada ku sugnay oo marka bilaabay dagaal inuu ku galo magaca dariiqada saalixiyada markii warqadaha waanada uu aqbali waayay waxay bilaabeen inay uga digaan cawaaqimada ay yeelan doonto duulaamadiisa sayidkana waa diiday dagaalkii sii waday 20 sano dagaal kadib waxa cawaaqibkeedu wuxuu noqday daraawishtiisina inay baaba'do hadafkii gaalka cad madow rabeen uu gaaro gaalka cadna si balaaray 20 sano kadib waxa xoogaystay labadoodii 1899 ku 899 markii saalixiyada looga digay inay dagaal bilowdo iyo 1920 oo ay burburtay meeshay maraysay waxay noqotay marka la qiimeeyo taariikh ahaan kaafi kalbeeri gumaysiga mar walba wuxuu u tixgelinayay kaaba qabiilada inay yihiin instrumentiga ugu fiican ee la howlgeli karo laakiin culimada sidaas uma arkeen maadaama culimadu tahay dad waxa ay ku shaqeynayaan tahay diin iyo ideologiyad waxaan xiganaynaa marka qoraal kale oo uu qoray barsaabyo badan oo Talyaani ah dalka maray 1885 ilaa 1941 muddadaas konton sano ka badan ee Talyaanigu koonfurta maamulayay marka mid kamid ah barasaabyadii oo la yiraahdo Giorgio Sorrentino oo dalka xukumayay qarniga hore bilowgiisii ayaa 1912 wuxuu qoray qoraal oo Talyaaniga u diray wuxuu ka warramayaa marka culimadii oo dariiqada qaadiriyada hoggaan u tahay sida ay u arkaan gumaysiga Talyaaniga wuxuu yiri dariiqooyinku make up waa the worst element عناصرta noogu xun waxa ayaga oo isticmaalaya sharciga Nabi Maxamed ay umada ku hanuuniyaan in anaga nacaan waxaan aaminsanahay in laga hortago controlka ay dadka controlayaan ku controlayaan in anaga nagu kacaan to revolt
ayaga oo wacdinaya preaching waayo wacdigaas wuxuu keeni karaa dadka inay noqdaan fanatics dad ismadax mara oo nala dirira yani fanatic waa qof markuu into cadaawad ku qaado gumaysi ahaan oo wax allaale wuxuu awoodi karo oo kula soo gaaro midii ha noqoto waxay noqotaan soo dalka ka kiciyo garaalka marka George Santino governatori Talyaaniga wuxuu noo sheegaa doorka dariiqadu iyo culimadeenu ku lahaayeen inay gumaysi ku noqdaan potential threat qatar u taala meel oo uusan ka gudbi karin inta aan baaraynay rekoorka Talyaaniga marnaan ma helin meel Talyaanigu ku qiraayo in dariiqadii qaadiriye ay kula shaqeyso bilcagsi marar badan waxaan arkaynaa in ay dariiqadu la dirirayso oo uu awoodi lahayaa xataa inuu shararka u yeero inay u yimaadaan halka ka qabiiladu u dhigan ugu yihiin waa kan Sorrentino oo mar kale leh waxaan isku dayay inaan laaluusho to secure their benevolence si aan u helo garabkooda iyo gaashaankooda si aan ugu horgeeyo culimada kale waa suuragal weys si kasta oo gumaysigu isugu dayay waa awoodi waayay inuu fuliyo siyaasadiisa ay qaybi oo xukun dhinacan koonfurta culimadii kale ee iskaashadeen culimada oo kamid ah culimada dariiqooyinka sida adag uga hor yimid ku raacay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan in gaalka cad oo halkan koonfurta Talyaaniga ahaa laga hortago waxa kamid ah Sheekh Xasan Barsame sheekhi jamaacada Jalilaal beesha gaal jecel waxa kale ayagana jiray oo koonfurta ka dagaalamay culimadii Sheekh Abikar Gaafle sheekhi weynaa ee beesha Bimal ilaa iyo hadda waxa la ogyahay Sheekh Abikar Gaafle inuu ku dagaalamayay dariiqada saalixiyada oo tii sayidka ahayd waxa kale asna dagaalamay Sheekh Abikar Ali Jelle oo asna dariiqa Ahmadi kula diray si kastaba qaar dariiqooyinka waxa loo kala qaybsamay qaar aaminsan in lagu la diro intellectual cilmi ahaan umada loo wacyi geliyo wax la baro iyo qaar yiri warankan u qaadanayna sida lagu kala duwanaado waana arinta taagan supposition ka dadku mal awalka hadda u haysto ee aan si dib ah loo cilmi baarin loona dhaxgelin marka waxaan u maanaa Sheekh Aways specifically ku 896 laba dhacda ku dhacda Talyaaniga geeska Afrika waxaan oran karno jab bahdil ah oo soo gaaray ku 896 boqoliyo 37 sano may boqoliyo waxa laga joogaa hadda 27 sano labada dhacdo waxay ahaayeen koow bishii March ama bishii saddexaad ku 896 Talyaanigu jab lama filaan wuxuu ka soo gaaray isku dayay inuu qabsado boqortooyada Itoobiya asoo ka soo duulay Asmara jabka labaad wuxuu dhacay 8 bilood kadib wuxuu ka dhacay Lafoole banaankan magaalada Muqdisho asagoo isku dayaya inuu gaaro intuu xamar ka duulo ilaa iyo lo inuu tago labada dhacdo oo Talyaaniga ku noqotay wax maskaxdiisa tarama gelisay maskax tarar waxa ay u darastay mustaqbalka Talyaaniga u yaala koonfurta dalka waxa uu yahay nooca uu yahay oo ah dagaal inaan marnaba laga aqbalayn inuu dalka wala qabsado asaga oo taageeraya dadkii mujaahidiinta ahaa xasuuqay taliyihii Talyaaniga ciidanka watay Kechi Antonio Kechi ayaa la oran jiray Lafoole qof habeenkii markii la weeraray teendadu ku jiray qof ka baxsada bale Talyaaniga iyo wuxuu waday inaan Carabo turjubaan u ahaa oo Saleymaan Abubakar la oran jiray kala yimaadeen Zanzibar ayagii oo dhan meesha lagu wada gumaaday asaga oo talaabada dhacday taageeray Sheekh Aways wuxuu alifay qasiido gumaysi la dir qasiidadu waxay ku jirtaa warqadihii Sheekh Aways qoray ee ilaa hiyada aan la daabicin loona baahan yahay kaligood in buug laga dhigo wuxuu yiri ahad sheeki waa ahadi Antonio Kechi Italian waa amhar iyo maalin leeydi qamiis harbiye عجيب من عجيب انتو سو اركان $100 دونا اي مقع دوريين هوية داما فصل كي إرر المدلن دولا كفار حربيين يا قورتي سمالة وبقول جيرين انتي فرمجارتي اسكاشيتين كونكي يسدح دي بقولكي إيه لباتن تضبدي اي حساستي قبين الله اي به يو ربي يو
أهو ربي ميل بيالو انتين عابدنا حربكي حرارة حباشي قدين حربكي دقالو هرابي قلين قلبكي سبونك انتي قوم ميين بوللو مقورتو واكفاريين سبيد اي قبين أقل دلدلدلين حلال دوريين قصل ربسيين سيدي دا أقرأي لكن في إنجليز كان كترجمان قيبت إنجليز كان كترجمان كبودا قصيدته واحد ناصر رئيسة جددي طليانيغو وغصو درقي دولك سوماليدا waxay ku dhawaaqaysaa ama noo raxaysaa qabaailadii iyo dhulkii ay mareen dowlaanadii ay dhulka geliyeen siday ka yeeleen cidii soo direct gareysoo soo hagtay waxa soo dhan ay noo sharaxaysaa bilowga Sheekh Aweys wuxuu noo record gareeyay ama noo document gareeyay noo qoray wax la qoray ilaa waagaas ma jirin suugaana wax lagu qorayay sidii iyo habkii dhaxda looga jaray si socodkii gumaysiga uu sii socday wuxuu isticmaalay si uu noo record gareeyo Islamic calendar ka muslimka uu isticmaalay si uu record gareeyo markay wax dhaceen maalintii deedkii bishii sanadkii wax dhan Islamic record marka lagu fiiriyo marka maxay noqonaysaa 1908 noqonay ya waa ilaa markii balcad la isla soo gaaray wuxuu ambaariyay amaanay qabaa'ilkii ka hortagay la diray wuxuu oo dhalay lama dhigi karnaa oo markii ilmo yar alcanaanta maxalda wuxuu canaantay republic qabaa'ilkii ku guuldareystay inay kuwa kale soo kaaliyaan ama gacan siiyaan si looga hortago si gaar wuxuu u amaanay qabaa'iladii guud jilbiyadii jufooyinkii kuwii la adagay ee la dhibaateeyay la waxyeelay kana gilgishay arintaas wuxuu qasiidadiisa ku burburiyay hamigii iyo hankii gumaysigu lahaa inuu gudaha ku sii galo wuxuu sii sheegay waxa gudaha u sii yaala waxa ay yihiin isii looga hortagay aakhirkii wuxuu gacmaha u taagay Ilaahay oo uu duceystay isagoo Ilaahay weydiistay inuu guul siiyo qadiyadaas halaasha ah ee dadkaas ay ku dirirayaan waxa yaab leh in uu Sheekh Aweys saan hadda aragnay isbarbar dhigay dhacdooyinkii gaalka madow sameeyay kan gaalka cad sameeyay wuxuu meel dhexe ku sheegay inuu asaga qayb ka ahaa ka hortagiisa waxa muhiim ah marka luqadda iyo siiqada qasiidada ay noo soo bandhigaysa inuu yahay waxa taariikhyahanada cusub ee Afrika wax ka qoray ay yiraahdaan unique perspective dhinac cusub oo wax cusub naga tustay waxayna leedahay significance gooni ah oo ay u leedahay taariikhyan kasta oo Afrika darsay iyo culimadeedii iyo islaamkeedii kuna darsay indho cusub oo ahayn indhii gumaysiga Sheekh Aweys kadib markuu sheekha dhintay waxa soo baxay Sheekh Faraag oo ahaa sheekhiisii oo ka soo baxay gobolkan Jubaland siina waday يعني intellectual debate ama doodii cilmiga ahayd ee uu gumaysiga ku critique gareynay Sheekh Aweys dadkana ku hagaayay qaabkay u dagaalamayaan isay u dagaalamayaan waxaan rabaa inaan ku soo afjaro suugayahan Soomaaliyeed oo noolaa 1908 oo xiganayo Sheekh Aweys sida muuqatana uu hay himikiyay inspiration uu siiyay Sheekh Aweys wuxuu talaani uma qorin magaciisi marka ma heli karno si aan u raadino dokumentigeena waa gubta halkan xamar marka si slide waxaan u qaadanaynaa descriptive amala wuxuu leeyahay talaani aan ka soo turjumnay because ayadu af Soomaali ku qoran ma hayno anoo dhalinyaro ah ninka suugayaanka hadlayo koonfurta jooga dalkii aan jeclaa ama dunidii aan jeclaa ama deegaankii aan jeclaa waxa soo weeraray Amhara waxay ka yimaadeen Jigjiga waxay soo mareen soonaha ku wareegsan Awdal the confines of Awdal waxay dhinac ka soo mareen oo ay soo dhex qaadeen qabiilka ogaadeen waxay dileen dad badan oo kamid ah beesha Karanle waxay isticmaaleen qoryo waruntiis rekoorka Ingiriiska daaragtid iyo Faransiiska Talaaniga intaba hubka waxa siinayay Faransiiska xabashada qaasatan ninkii suugayaanka Faransiiska ay looran jiray Ras Rambo oo hubka u geeyay boqor Menelik maanta wuxuu ku leeyahay magaalada Djibouti hadda tagtaan guudka dhinacaas hadda uga baxda qorax u dhac waxa
وحاجر ملوين وسكوريك والله مرة فرع عمل لمده والله بحيي راس رامبو صوني هي راس رامبو waxaan codsanaynaa dawladda Djibouti inay magac ka bedesho oo u bixiso Maxamuud Harbi oo ahaa ninkii meesha ka qudbeen jiray kontomayadii dadkana wadannimo iyo Soomaalinimo sharciyada shanta ku waalin jiray marka hub ay isticmaaleen oo yiri hubkaas waxay u isticmaaleen dadkii uu dadka u ahaa ama uu hogaamiyaha u ahaa Imaam Umar waa imaamka Abgaal waxay dileen oo yiri intaas ay soo socdaan dad badan oo u dhashay beelaha Jidle iyo Jajaale markii dambe waxay yimaadeen Jiiciyo dad badan oo garan kara jira meelaha sheegi doono oo u dhow iyo wabiga qarkiisa ay noo soo istaageen markay soo gaareen Jibirow waan weerarnay dad badan oo muslimiin ah ayaa iskaashaday dariiqooyinkii waa la diray markay marayaan meesha loo yaqaan Yaaqle beesha Moblin ayaa kor u istaagtay oo soo wada safatay way la dirreen awoodda beesha Gobron lama sheegay laakiin waa jilib kamid ah taani muxsan Gobron waa jilib kamid ah beesha galadi afgooy degan ayaa halka ciidan ka dagaal gashay amxaaradii way carareen laakiin waxa yimi amxaara markay carartay the infidels oo ula jeedo gaalka cad gaal uu leeyahay kuwaas waxay ka yimaadeen every corner of the world dhinac walba adduunka kamid ay isku kaashadeen marka ayadoo culimadeenu wali ay si macneynayaan sida gaalka cad iyo gaalka madow loo kala saarayo waa ayagii lahaa إذا شفت أمحار فرنج حاج وما هو قرني سجال تمنات هذا أحمر عرقته فرنج أو أفكار تركيا أفكار عربية أفكار بدن أرمضة فرنج وحلا يوروبيان وهو يوروبي من قال كعد هو نقول يا حاج ننتهي الحج تجو كله لمدة بحريستي سكولا ما شاء الله عبد الرحمن كوباتسن وسؤال هذا واحد بدنا كبود سان وقت وبعد نعمل سؤال وحاجة توقعت يقول سو جارتي وقتي أنا هذا الموضوع oo ku socota Professor Xasan qof ayaa wuxuu soo qoray farac Sheikh Abdul Qadir Jilani inay joogan Soomaaliya maxad ka aaminsan tahay hadii ay Soomaaliya joogan goormay imaadeen taariikh ahaan Professor hada askari su'aasha qodid tahay Soomaaliya joogan iyada boy mujabka looga misaashay doona waxa jiro buug qoray mutaalim Malaysia u dhashay Muslim وجوب جامعة هارفارد وأنا بوك أرتي أنا بين وضع النار وأبدا أكبر أنا مرة وأنا جامعة دب أغري وهو كبر حضرموت يمن سوى لغة صحي إيران لغيني لغة كالدول بيو بلغال من عن إنديا مسلم سوق وريجي وما لك الدول عمر بري بدنا كلهم يمن بدنا إيران جوا ما لك بدنا جوا أبو قادر جيراني تاريخ الميلاد ديجا كل سنة يبغون ملاك مركي مريض ونوع لكن الشيء أول فكو عراقي معنا يجاسي سهلة ولا سوني بس ضد أشراف عنا من رجل ضد عن صومالي ولا سكوت البلاد إن دي إنها الوصمين موي سكروا لجوء بانكرس شعب الغادرين فرعي سيرو جو مجرم وواحد اللي يبغى واحد تاريخ اللي فينا ما تاريخ الدسيل اللي مكلف فوق صلاب وحال إيجا خبراء وحال إيجا بوجاكتا وحال إيجا archaeology بس ما يعرف قديم كان يعني بس وحبا على فيرما لكن هذا علمي وصير هرمرة يعني دون كدي إنه يمكن مركب شيء لطيف واحد الله يقال معروف رمريو ذكروا فيه والله قرنا سيدوس أنا قاعد أنا معروف بعد ما إزاي دكتور هو ده هاي منه أبويا وماليزيا نبوه مركب أنا كذا مش حاسوسية أنا مش حاسوسية هذا كورو أيام حنا هذه ماليزيا أنا جامعة الملاي أردكا فواحد تجبنك ما شاء الله بحي العقد سكوك أنا فدي أجمع صار فلست سؤال جيل سوى ذا تو تبع قرب حساري قلت له مركب العقد بيكتب بناك بيشوك أرتا ويا وأكسوه هنا بناك مركب تجي وقدمت الميد وعيت ما أنا فلس ما أنا فلس عيتري متقانا يوسف كوني markaas aan dhahay iskuulada iyo jidadka aan ula baxnaa xageena awliwkay waa awliga afraad tir isaana markaas bay baadeen ay tiri nin adiga hebel ii sheegtay oo adiga awgeeda afraad ama abulankeeda waaye ayaa wuxuu ka tagay tiri dhinaca Afrika geeska Afrika wuxuu tagay Xadramut
وحسمود مركز بقالوا وين وشلون بيه نينكي الشيقة أو علمي وكبرت نينكو علمي كبرتها وحيتي وأدري السجى يحركله إني جافا كوسوف اللي يعني جيت إسلامك جافا وماشي عبد جاكرتا لوكاس أندونيسيا يعني ضدك أبدا ماشي ودقين ماشي ودقين تري جبر جفاري سو كورسيدا معناها جبر كوكا وكورسيدا ويلو دالي ويلكي جبر وكورسيدا كلا تقعد جفاريسا ويل الشيء ويلكي أصاب بحي أصاب داليرا وماليسي يمد hooyadeeda ku guursaday Malaysia marka Malaysia ku dhashay ay ku dhalatay marka wixii dadka isugu aadinaysay waa isugu aadinaysay waxaan ka rabaa marka arrinkan inaad ila baartid oo aad igala shaqaysid bis waxaan dhahay adigu laba qof oo Soomaali ahanahay waana iskaashanaynaa arrinkaasna waa baaraynaa kadibna waa isla wixii jirnaa hal marna waa isu nimado shahan galabka isla cadda إذا جامعات كله كتب لكن جامعات ده سي إذا نكدي هرس دكتورات معناه وحكوا ذا مركا دت فير وحصور تجلا دت كسي أسوأ عليها فيري قف بحياة ملبو وحكى برا مركو ملك بحدا وحلودريا ملك حلودريا وهكذا لكم ما سكن نسوا ماليا وحوك بقى سكونه أمي المود الشيء دولة دي عثمانيين أيها وحي قدرتي ذلك كامبودية إنه دين تكسر فيه نكاس مركو كامبودية تجي أيها وحي قرصدي جبر فيتنامي سو قرصدي مركو جبر فيتنامي سو قرصدي جبر يدش جبر تأيد الشيء أني صومالي أو صومالي كتو أو كتب كتب سنة عيدة كفرنسيس أو كتب دجال كله بعد الدنيا أيها جبر وحي قرصدي فيتنام الميدة شباب بدين هذا جيبوتي جوجان مريكان كي جوجان فرنسيس كي جوجان marka dadka haduu soo u socdo loo raakaadiyo oo wax la raakaadiyo wees dhaxgal marka hadii Soomaalida anaga aan naqaanaba ay meeshaas ka dhacayso maxaad u baleynaysaa reer Sheekh Cabdul Qaadir oo dhiigooda la barakeysanay meel kasta waa joogi karaan laakiin waxa u baahan sida uu sheegay doctorku in baaritaan lagu sameeyo marka kuma didi karno haana ma dhigi karno ma dhigi karno doctor inta kale iftiin naga raali hada hadalkeena badan sharaxadan macallimiin ama hadalkan badanayna waxaan rabaa inaan ku soo hadalka professorka ugu soo dhacay ابن بطوطة أو قري رحلة ابن بطوطة صعدك ابن بطوطة وهو مري هو صدح بقول صدر يكون حلق ميلادي تاريخ قال هذا تضرب على سنة أيام كجبنا يا تضرب على صدر يكون عليه كل وضع الماضي أدونك مركز جري قاصته هو دي مسلك حلقاس تضرب على سنة كور مالهم مرة حكمت المقدش ده صومالي يقول عمر لا مجال وحياتك تعالى مقدشو يسيلع marka waxa yaab leh buuga marka inta Soomaaliya bas daacas waxa ka boodi ina wada aqrisaa fiican inta kale markuu marayo jasiiradda Maldives oo hadda Hindi dhinacaas kaga sii taal oo jasiirad goonideeda la soo xukuma wuxuu ugu tagay oo dadka ku nool uu yiri sheekh ka yimid Maqdisho waa Maqdisho waxaan culayaa xoolo laga keenay Maqdisho أرجع مقدشة ذلك عرفتها ما كنت أحكي وقولها سعودة حجاز سيدة شام سيدة جيس كعرب كازاخستان يكون صايص وحكوا أركي الشيخ اللي هذا الشيخ سيدة مو بيقول أو كيمي سيدة أو صومالي أو يبدل الشيخ شيخ المالديفز كم أنا أو ضبطا أو هم المالديفز مالدوي أنا بيعرف كسر في لندن ولا يوم كسر ترانسل waxaa ku dhacay xaqada waxa inta ila fadhiyo ii sheegay inuu yahay madaxii dalxiiska Maldives markaas aan ku iri waxaan hay taariikhiyan Afrika guud ahaan tujar jalmo Afrika oo laakiin isbedel Soomaaliya ku ah ma la socotaa Maldives konsar ku dhawaad inuu sheekh Soomaali dadka waxbaray joogay dokumentigiisa maraysan wax maraysan markaas uu yiri dalxiiska u qaabilsanaa Maldives taariikhiyan fogaa انت يعني كان ضبط سوى ويب سايت رئيس كان يقول لي ما كان سايق ما يسوى عزومه سامي الضيف زوما على يقول صوره انا وحي كونتاكت يا كلا قرن هذا المجلس يقول هو كلا تقريبا وعير كونتاكت يا كلا قرن الضيف انا كان دور شيخ الى اولاد دي سي يبقى حسابي وحكى عليه بكاس وايغو راح نسكب عاد دري وايغا صوري الشيخ محمد ساس الصومال او الشيخ ايوه الشيخ محمد حاجي الغادري الشيخ محمد الحاجي
مقدشو ماشي كده شيخ محمد هادي الوشيخي marka daytada hadayna tusaan todoba boqol oo sano kahor ayagii lamadakooda ma burburin dokumentiyada waa kan waxuun carabi waa haray ila ogaado marka waa la isdhexmaray ummada muslimka oo dhan buugaas ninka malisaanka oraa ugu wanaagsan khaasatan dadka ashraafta meel kastay ku noolyihiin oo dad muslim joogaan bay malgul ka soo bilaabo ilaa meesha ugu dambaysa dad ashraaf oo xasan iyo xuseen ku abtirsanaya laga helaa maanta marka su-aalihi kala qaadanayna naga raacda نقرأ العصور دي كمان العصور دي سماعي العلاقة بين الطريقة القادرية في الصومال والناس الدعوة الإسلامية. والسؤال لكن وصارت على صدر المراسلات سؤال كذا. ما هي عربية غير كذا هي طريقة القادرية هي إلا في دين الإسلام. يا كانوا كشغين هاي. ترى الصومال وتسمسك عبد علي كان هنا دل القادرية كشغين يصير. كان كذا تو كسمسك عادي الجواب كان سؤال كان متصور يعترف بهاي maxaa caddaynaayo inaa sheekh cabdulqaadir aweys muusikista مؤسس كميكولا الصومالي اوكي تصوالي انت على سؤال عشان كنت جواب waxaan iloobeyn aan soo rixlad ibn batuta wuxuu xusay magaalada xamar markuu yimid inay ku yaalay markas weyn oo diinta islaamka lagu barto 700 sano kahor markaskaas kaga duwanaa meelihii islaamku soo maray in waxaan hadda gaalada iskooladooda ay u yaqaanaan ay islaamka ka barteen oo boarding school wuxuu galay soo meel ma jiraan meel carruurta aan geysano wax ku bartaan oo ilaa secondary school ku gaaraan oo saas diinta loogu diyaarinayay inay 700 sano kahor muqdisho ka furmeen دمشق oo soo maray inay ka furneen ahadna magaalada ugu weyn carabtu degantahay Dimashq ah Maqdisho ka weyn diin islaamka oo weyn qaaliga magaalada dadka kala xugminay 700 sano kahor Maqdishada rixlatul ibn Tut waxa ku qoran ah Masar laakiin imaam Abu Bakar Sheekh Umar inuu imaamka ahaa nin wuxuu ku tilmaamay magaca Soomaali magaas lama isticmaalay barbari ahayd carabta ayaa waxay barbari dhihi jireen marka hore dadka aan afrikaanka saxdaana ahayn carabta saxdaana aan ahayn ayaa marka hore waxaa dhihi jiray barbari marka laba arrin boo noqotaa in barbarkaas kaleeto oo shimaal afriqiya oo cajam ah aan carabtana dabcan way cad yihiin inay ka soo jeedaan ama magaalada berbera oo dadka loogu magac dana berberana waa laga yaabaa marka arrin kaleeto baaritaan u baahan waa idan صح ما درس ماشي في مجا صومالي صوماليا دي سوماليلاند habeen weyn oo warramay soo deeqo TV MMTV Somali TV ayaa soo deeqo TV Hargeysa oo leeyahay saaxiibkay Maxamed Cabdi Sheekh TV madax banaan marka su'aal jaan ka jawaabeynaa inuu yahay muassaska dariiqada qaadiriya Sheekh Aweys ma ahayn asaasiga dariiqada qaadiriya dalka way jirtay hortii asaga ku dhex barbaaro ku dhex baxay وشيخي الشيخ عبد الرحمن يا شان شيخ جوي والشيخ سوفي وتقارن قبل هلك علماء وين وها لكن هو ها تاريخي أنا أفريقيا إسلام في الحقوق اللي يذكر عسين وضياش وين الدخول ما أنت جوال إنه ها ريفايفل إنه الاستوشنات دي أسي سمية ها إنه صار عليه وحكو سيداني مجدد كله ريفولوشنري كعامل وحكو دردري سي ذهبي سي قرحي سي فافي سي سعودي لكن الطريقه قادريه طريقه الاسلام كجيس افريقيا بدن دحو دي بقولان صار وقت سو غشي وحليه ولا اسكو استا ما قرنجي شلي كمانه تيمت قار على قرنجي افريقيا تيمت نمو عدينتي والله ايمانا قار هي قرنجي لو كمانه تيمت يا marka sheekayna sheegaws oo qarnaysa aan tamaa marka dariiqada already waajirta أساسية ما أعرفها يا كان الشيء أو بعض لا كان ما أبادر كان الشيخ أبادر الشيخ حرة سمعي قرن قلبي كمان مقالة حرة الشيخ أبادر أبوري أو الشيخ كويل قادرية قرن قلبي كمان اللي ميلادي يعني يا سياب بقول سنكون أي أساسا عروض أول أو جيسك أفريقيا علم جديد تلاقي برتين أحد وكان حرب قصر كوس بين بغزيت التماضي بشي جنوي maanta waxaa loo aqoonsan yahay caalamka oo UNESCO oo
ريكورد كتاريخ ده مالها قديم كأ سيد هذا مساجد ده قديم كوكل أي كائن حريرية أو أي حرام ضد كحرام أو مال لبغض ولا سيارتين نقدان وهي لا أقصي حرام مجال أفراد أبو بركيسان أو كإسلام مركز الغرب مكة المدينة يقدس ماشي أفراد هذا الله أوصل مركز تجي هذا أوصل مري سنة بدل ما يكون ونقول waxaan tagay markaskii iyo qabrigii shaqabaada culama joogto waxaan bixiyey siyaaradii sheekha waa fariistay waa la joogay waxaa igu yaab badnaa inaan arkay nin markuu hadlay lahjadiisa aan aqoonsaday inuu ka yimi markaas horeysanay oo ii waran goormatani yiri 5 sannadood bas aan jawaaba ha oo say ku timid waa soo lugeeyo waa dariiq qadari lagu ku tagay meesha marka ayagana waxay ku sarfeen furay qabriga iyo markaskii asaaha af ahana si fiican iskuma fahmayaan afaariya lagu hadlaa aniga ayagana waa loo kala turjumaa halkaan oo ka lugeeyo har lagu ku tagay asoo cilmi doon oo diin doon wali culimadeena saas isku dhaxmaray yani kala jarma dhayn si kasta oo gumaysi u yimid si kasta oo xukuumo kala duwan loo maray si kasta si loo galay calaad sokeeye wali dariiqada waa soo furan علماء النسوي صلاح صلاح بس هذا فاتح كويس ولا فاش كله فاش ودم بيسا اسلاي ما دام وقتي اد نو هاي اوكي اوكسينا waxay tahay qof ayaa wuxuu soo qoray Cabduqaadir Saqaawudiin Allah naxariistay oo kamid ah muasisiintii Israel waxa sababa inaan la isku aqoon in ay abtir wadaag yihiin shay wees dheer saas oo marna su'aasha aan عبد القادر الشيخ سقاودين أكمل هنا هو شيخ أويس ويلكي سنة له أبترك وأصلا تسرع سيدي ده بدي مرة هذا الشيخ أويس منتهي بل كان جوميس هيستا سي أدرك الله ما مرايو سيد ضرب الله وضياش الله سعدان جوميس كتلاني قابو مرة كونفورت إقامة إنجليزكو وهو مرة اسمه لهن هل كان وحال مرة سياسة وده دايركت رول وأتوصل كل حكومة وين وحلو ما إن دايركتور كان يردان عصب أجنبي صومالي ما أنت درستو إن بدل كم كدودو يعني وحنا بدل بدل كلا فني كونفور على دول وجرت وغينا وجاتي نبض يدول نيمو وكان بقبيلة دودي وجويسي أوصل ما لحق جري وشغله ولا ضبط يشي سينا هل كان كونفور كان بقبيلة اللي معنا لهم وحنا كلا لو شيء يقار سهستيو قار من ضمن كلا وكوكب صناعي حكم كسلطانة مقلة جرالة مقلة ولوس عتين جفوين عن حق لهم جرال لماذا سلطان لماذا وبر لماذا إسلام لماذا أسكت شيء كنا كفر أو سهستالس عتين يا أنا كسر جيد سلطنة جلب كي سلطنة ده كمل قار أسكت صناعي وإنها كثيرنا لكن غوي كمل نمو بالمستوى ولا يكون جوا نكى غوي سلطنة كسر جيدي أو بس نمو كسر جيدي شغل يوضح inkastoo taliska maxamed saad barbakosh bilow hore jaalisiyaad magaciisa officialka oo ah abisiyaad oo soo saaray digreeto 1970 oo u baabi'iyay ka baqabeelo dhan digreetada ugu horeysay aqrisan digreetooyinka soo horeeyay jaamacadda British Library taala warqadii jaalisiyaad wax ka baqabeelo ma jiro weeyay magaca u baxshay wax hadda ka dambeeya waa nabadoon shaqan oo dawladda ay qabanaysaa wax qabaydiisda marka system kaas loo kala xukumo labada dhinac goysigan halkaan culimadii madax uga istaagay dadkana diiday inay hadlaan maalowda Djibouti 1988 warqad talaan hadda soo helay xamartaan waxa arkay dad ku madax adkaada talaaniga asoo ku sameeynaayo wargoyn bananka la istaajiyay dadkii madaxa loo gelinay xaq governo Soomaaliya meesha hadda gobolka Banaadir degay agtay 1988 sagaashan iyo sano laga warqadii waa wada marka de waa inaan derisno qaababkeen oo kala xukmay marka Sheekh Cabduqaadir asaasi SYL Somali Youth League marka hore waxay Somali Youth Club naadiga isu taga dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Soomaaliyeed markii dambe isku bedeleen qaali ama xisbi waxay taariikhda la duugoobay degmeysiga meesha waana la asay laakiin anaga waajib la saaro waa maanta taariikhda la duugoodo 100 sano gaarto 100 sano gaarto ibn Battuta 100 sano ku dhawaad ka sheekeynayna maanta oo sharaxna waa inaan soo bandhignaa meelo badan oo magacaaba markisyo masaajid qiimo badan oo lahaa xorriyada dalka oo ka qayb waxaan asanaynaa waqti ma jiro su'aalo badan ayaa iga buuxay comments waa dareemaynaa
marka waxaan codsanayna inaad naga raali ahaataan profesorku wuu joogaa xiriirkiisana waa la heli karaa waa nin social xataa qaacada marka laga baxo qofkii su-aal shaksiya raba wuu weydiin karaa su-aasha ugu dambeysa aan raba inaan kusoo xiro iyadoo codsi ah waxay tahay yay tahay cidda kusoo duusay Sheikh Aweys Al-Qadiri oo sababtu ahayd iyo sababta keentay in lagu soo duulo authority-ga ama xukunka wuxuu u qaybsanaa dhowr nooc hal waji ma laha xukun waa xukun siyaasadeed gaalada waxay u yaqaanaan markay cilmiyeynayaan political authority waxaan ku ahay xukun wax ku xukumaya siyaasadda authority kale waxaa waaye economic authority dhaqaalaha ku xukumaya adigiyaa suuqa haysta suuqa ugu weyn xamarweyne waxaan jiray qarniyada hore ninka oo maalqabeenka ugu weyn meesha badeecadda wax soo dejiyo wax sii dejiyo authority dhaqaalo leeyahay oo badeecadda maalina kor ku geeyo maalina hoos ku geeyo waxaa kaloo jira authority intellectual authority waa authority cilmi ah oo qofku aqoon oo dadkii influence ugu leeyahay ku macnaynaya waxaa kaloo jira religious authority diineed xukun diineed sayidka iyo Sheikh Aweys Amar waxay isku qabsadeen xukunkii diiniga sayidka wuxuu rabay political authority inuu asan noqdo intellectual authority noqdo religious authority waxa dhan oo garab ku qaato rabay sayidka Sheikh Aweys wuxuu u arkay challenge marka intoo dhiman ka hor Sheikh Aweys ay isqabsadeen waxay isku qabsadeen qasiidooyin ay islaafinayaan qasiida oo sayidka soo marna ma soo qoro carabiga wax lagu qori jiray culimadeena hore af carabiga ku qorayay gumaysigan waa sii raacay carabigaas wax ku waday luqadiisa baa ku qorta laakiin carabiga waa agdhigay waa dambe culimadeena waxay bilaabeen Sheikh Aweys kamid yahay inay carabiga af Soomaali ku qoraan waxay qoreen carabi af Soomaali ka dhigayaan ay ku qoraan qasiidooyinka markay isla dhaafiyeen ayaa sayidka laga adkaaday tartankii qasiidada oo cilmiga ah soo dir ana andiro dhag eray oo isticmaalay Sheikh Aweys oo isticmaalay ayuu ka carooday si xun uga carooday oo sida loo arkayo ama taariikhyahanada u macnaynayaan dad ahaan sayidka soo ahaayo suureeyey oo soo koobay laba eray camal oo saaray bas tiya sayidka u arkay inay fadaxad ku tahay ceeb ku tahay waxay keentay Sheikh Aweys in lagu duulo anaga taariikhda baarayna marka waa la nahay amarkii sayidka bixiyey ee hala soo dilay uu yiri aradiisi markuu kala sheekaystay golihiisi oo loo yaqaan qusuusi golihiisi wasiirada komandaradiisi ciidanka ma ayaga isxilqaamay jiidan shabeelle oo biyoolay ku aadan waxa xukuma markaas 1909 marka la dilay 184 sano laga joogaa maanta oo fadhino geerida Sheikh Aweys 184 sano ka hor daraawiish shabeelle dhinaca waxa maamulayo khaliif Sheikh Maxamuud khaliif Sheikh Abdulle Sheikh Xasan Sheikh Nuur oo sayidka la dhashkaya ma khaliifa xilqaamay oo shaqadii qabsaday kulli sida la qoray oo dhisigii Talyaaniga oo qoray rekoorka si u rogorgareeyay salaad subax lagu soo duulay Sheikh Aweys culimadii la joogtay waxay go'aansatay maadaama laga hubaday si kastay ku daafici karaan inay ku daafacaan ay u bareereen warmaha wasitaan waxa uu yeelan laakiin fardaa loola yimid iyo hub waxaa la rikoorgareeyay iskoodris ma wixii taana wixii xigashadaas dagaalkii salaada subax bilow inuu saacadan soo gaaro casr qofku u dambeeyo dhintana Sheikh Aweys uu yahay intaas furanta waxa galayo dagaalka xirtiis marba safa qaar galayaan wallayna marba saf intaas waa la isku daala waa la kala nasana casrkii oo dhintay marka gacan daraawishada ku dhintay sida rekoorka inta cadda ah wax taqriiqiyan kale wax ku qiimeeyaan wixii qoran hada la yiri wax kuma qiimeeyo hadii la yiraahdo sida hadda soo baxday labada sano u dambeysay ay dad leeyihiin Talyaaniga dilay waa ina cadeynteeda aragnaa for example ingiriiska NFD fadhi inuu rekoor gareeyo oo dhaho daraawish ma dilne Talyaaniga waa rekoor ina aragnaa cadeyn evidence agnigo waxa hadda cadeyn wadan ma la qori karo jaamacada laguma dhigi karo cadeynta laftirkeeda dhowrna oo kala baxaysa cadeyn waxa jira la dhaho anecdotal evidence wax cadeyn oo huma ku jira sida hadda midda labada sano soo baxaysa oralka hadalka oo leeyahay Talyaaniga dilay inta la dilay waa in taariikhyaanka u sheegtaa wax loo jeedo reasonable for example reasonable qabana shara ku sidee boqolkiiba afarti mid gaal ah yimi berbera oo saamiya oo sardoon oo ingiriiska u saameynaya dhulka Soomaalida
qabiilada qaar ma ogoleen inuu gaal dhex yimaado qabiilada qaarna gaalka waxaa ku xirnaa ma aha inay diinta ka fogaadeen maaha dhaqaalahooda ku xirnaa political economy waxa loo cilmi ahaan dhaqaalaha siyaasadeed meelaha hadda degan waqooyiga kale qayb ka mid ah dhaqaalahoodii ayaa wuxuu ku xirnaa maraakiibtan hindiya u socoto zanzibar u socoto cadan u socoto inay xoolo ka dhoofiyaan ay xoolo gataan dadkan hadda ilaa gobolada dhexe dhulkan ku noolna dhaqaalahooda gaal kuma xirneen saa darteed ma ogoleen gaal inuu dhex maro ma ogolaaneen hadduu soo dego waa idin dhex maraa ma yeelayaan laakiin xagga waa la yeelaya waayo waxaa la kala iibsanaya wuu soo degay ninkan markuu soo degay wuxuu sheegtay inuu yahay nin muslim ah Richard Burton al dhaha inaa maanta inta ka soo afeeyay sawiradiisa iyo wixiisa oo aan hayay USB ku hayay ya marka shirka labaad aan soo bandhigi doonaa wuxuu sheegtay magac la yiraahdo Xaaji Cabdallah muslimna waa diinta islaamka xogaa carabaha ku soo dhaxbartay carab oo dhan iyo Soomaali wuxuu ku dhaxmarooyaa inuu muslim yahay salaadana dadkaas ay dujinayo waana gaal ku 854 boqol iyo 70 iyo meeqa laga joogaa 7 sano 177 sano almost 200 sano ku dhawaad Xaaji Cabdallah asarkii uu dujinaa dadkii maqribka waa dujinaa ummadana diinta waa ku yareeday waa la garan waayay quraankana waa yaqaanaa waa wacdina markuu dhameeyna waa ducaynaa muxuu rabaa inuu sahmiyo oo sirta darso ingiriiska u diro qaabka loo gumeysanayo isaas carabta waa garan waayay inuu gaaliyo mina habeen arkay carab ah yementan markuu marayo inuu istaag ku kaadiyay kaasaa ka shakiyay carab laakiin ma sii dabagelin Soomaalida waa maray magac muslimku ku maray ilaa harru tagay buug wuxuu qoray ana tarjumaayta af ingiriis oo yiraahdo the first four steps agii u horeeyay ninkii galiyay uu leeyahay harab first four steps markuu laabtay aqliga Soomaalida hore waaga joogto fiire diinta ku weynay waxay garteen inuu gaaliyo haddaan weydiiyey marka ayagii ma qorno gaalka ingiriiska ma qorin in la gartay laakiin in la dhaawacayo lagu soo duulo muslim yahay waa sheegay Allah bar saa ku garateena ay culamadii dadkii hadda berbera ugu tagay saddex isbuuc ka hor wax reasonable ah oo historian ku aqbali karo qorin kara ii sheegay waxay dhaheen nina salaamay habeen indhaha la oo wayeela dadkii markuu salaamay ninkii yaa yiri nin awliyo ahaa man dhaay gacanta caawi itaabata muslimaha gaal waa kawra waa loo jibaama wax loo jiba waa reasonable inay ku garteen taas adiga aqra saac gaal ku wareeg wargareeyay taandadu ku jira lagu soo weeraray sawirkiisa inaan saafeenay USB aan ku wada waagaas sawirka laga qaaday adan looga qaaday halkan meesha warka ka galaa halkan waa go'anta way ogaadeen marka arintaas haddii ilaahay inuu aadan u sii dabageli doonaa Xaaji Cabdallah hal mid laakiin waa in la ogaadaa hadda meelii Afrika ay tageen gumaysiga waxay qorayaan hadda aqris waxay leeyihiin Soomaalidan Afrikaanka kala la mid ah Afrikaankan kala heshiisay la galin sida Kenya Tanzania Uganda Cameroon Ghana Nigeria lamada ma helay ayaga ma sheegaan sababta ula madaxeen laakiin waxaan ku dooday PhD-deedii sababta ula madaxeen waxay tahay kitaabka Quraanka ay aaminsanayeen Soomaalida u yimaadeen dad culamadooda heshiis u galayso la hadlaysa من كتاب قرآن أميسن حفظن حفظينا علم كستو قال أولوري ماذا قرآن كوي قول كربية كوي أنا جامعة لندن مركز هيستوريا University of London Goldsmith أنت أبغى كسبت أنت عن أكسفورد قلب كذا قرآن كوي كائن تاريخي هنا دي الدولة كتاب كان حاول تقلني نايده على الدولة لبا قريه ده مو حاول تقلني as history تاريخها مزاج هولي إنه وحكرة مثلاً إلى إيركا كان أيوة حيسكر عيان وقاله وهيستوري بس إلى الإله ما أمي سنة كتاب كأيوة أنا وحكو دوّدنا إنه تبوث لبضل كتاب كأنه كل أفر بقول يدور سنة قرية كتاب كلا العقد يقول قرن كل أفر بقول سنة تاريخ الميلادي كرامنا وياه هي واحد يجي على توصل دقوا وحكو فقري كانوا سنهين فلسفية دورنا عرفتي يا جريك وحكو قرن وقف بني آدم مسكين كتير كرنا هين marka intaas aan soo gabagabeynaa aad u maasiyay professor Maxamed Ingiriis hal mar saacad xoog leh insha Allah